kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta sida wax la isu baro mid ka mid a xirfadaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad lahaato si aad guulo badan iyo horumar badan u gaadho waa awoodda aad naftaada wax ku bari karto nolosha waqtigan aynu joognaa waxay aad uga duwan tahay sidii ay noloshu ahaan jirtay waqtiyadii hore waqtigan aynu joogno haddii aanad lahayn xirfado waxaa si fudud meesha kaaga saari kara dadka yaqaano wax ka badan waxa aad taqaano ama qaban kara wax ka badan waxa aad qaban karto waxaa laga yaabaa inaad ku guuldarraysatay waraysi shaqo oo aad gashay sababtoo ah waxaa kaa maqan xirfadaha qaar sidoo kale waxaa laga yaabaa inay ku dhaafaan xogo aad u muhiim ah sababtoo ah aqoon uma lihid luuqadaha ay xogta aadka u muhiimka ahi ku qoran tahay waxaa laga yaabaa inay qayrkaa ku dhaafaan sababtoo ah mataqaanid sida kombiyuutarka loo isticmaalo ama loogu shaqeeyo sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad ku fashilanto inaad guulaysato sababtoo ah waxaanad lahayn xirfadihii bulsheed ama aqooneed ee aad ku gaadhi lahayd haddaba waxaad u baahan tahay inaad naftaada dhisto islamarkaana aad barato xirfado badan iyo luuqadaha lagu qoro xogaha aadka u muhiimka ah sida luuqadda ingiliishka ama luuqadda carabiga kuwaasoo kuu sahli doona inaad hesho xogo aad u muhiima haddaba waxaan halkan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha kaa hortaagan inaad adigu wax isbarto islamarkaana aad xirfado badan barato waxaa kaloon kula wadaagi doonaa waxyaabaha kuu sahlaya inaad adigu wax isbarto qaar badan oo inaga mid ahi waxay fikrado aad u xoogan oo been ah ka aamineen inay naftooda wax bari karaan fikradaha beenta ahna waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo waxaa jira waxyaabo aanan anigu isbari karayn oo aan u baahanahay cid ii dhigta islamarkaana ii sharaxda haddii aanan marka ugu horaysaba wax fahmin way igu adkaanaysaa inaan inta dambe fahmo fikradahan beenta ahi waxay kaa fogeynayaan inaad barato xirfado badan oo aad adigu isbari lahayd adigoon dadaal badan ku bixin haddaba wakhtigan aad joogtaa waa wakhtigii aad ka xoroobi lahayd fikradaha beenta ah islamarkaana aad baran lahayd xirfado badan oo ku anfacaya noloshaada mustaqbal ifayana aad ku gaadhi lahayd halkii dadka kale ee kaa xirfadaha badani ay meesha kaa saari lahaayeen sida naftaada wax loo baro namber kow isagoon macallinkula jooga wax ku barayn ayaad wax baran kartaa ugu horray waa inaad ogaataa inaanay maskaxdaada isbeddel weyn u samaynayn inuu qof wax si toosa kuu baro ama inaad fiidiyo ka daawato ama inaad qoraal ka akhrisato maskaxdaadana dhammaan waxyaabahani waa isugu mid namber laba ka baro xirfadaha yuutubka iyo websaydyada wakhtigan la joogo baraha bulshadu waa macallinka ugu weyn ee aad wax badan ka baran karto halka aad waxyaabo kale oo aan ku anfacayn aad wakhtigaaga ku luminayso ka faa'iidee wakhtigaaga oo ka baro internetka xirfadaha aad jeceshahay ee ku anfacaya ee aad ku gaadhi karto hamigaaga iyo yoolkaaga namber saddex samee iskuday badan iyo ku celcelin badan waa inaad ogaataa in marka ugu horraysa ee aad bilowda inaad xirfad barato aanad xirfadda iskudaygaaga ugu horreeyaba aanad ku wada fahmi doonin waxaa laga yaabaa 20% inaad fahanto xirfadda aad baranaysay marka ay sidaasi kugu dhacdo ha niyad jabin hana joojinin wixii aad baranaysay sababtoo ah marka xigta ee aad isku daydo waxaad fahmi doontaa 50% iskudaygaaga saddexaadna waxaad fahmi doontaa 85% sidaa ayayna ku soconaysaa hore ha u quusan inaad hore u quusataa waxay kaa hor istaagaysaa inaad naftaada wax barto namber 4 kantarool oo carbi naftaada si aad u barato xirfad kasta oo aad rabto inaad barato waa inaad kantarooshaa oo aad carbisaa naftaada sababtoo ah markaad rabto inaad waxyaabo cusub barato waxaad arki doontaa adiga oo ka caajisaya markaad bilowdo inaad xirfadaha barato adigoo dareennadaada iyo siday naftaadu ku tidhaahdo raacaya si aad u barato xirfadaha aad rabto ha u oggolaan dareennadaadu inay kaa joojiyaan waxbarashadaada ka hor imo dareennadaada oo kantarool waxaanad awood u yeelan doontaa inaad naftaada xirfado badan iyo aqoon badan aad barto channelka sabskrayb saar si aanay marnaba kuu dhaafin xogaha cajiibka ah ee aan ku soo gudbiyo barteenna maamuusa midiya